aniga muddo 7 sano ka hor ah ayaa waxaa dhiigkar baan leeyahay. dhiigkarka wuxuu ugu dhuftay labada kaliyood iyo wadnaha. isbitaal Digfaar ayaan galay. waa ku dayacmay runtii markii aan ka hadlo. ilaahay baa iga badbaadiyay. laakiin taliskii aan ka tirsanaa iyo dowladayda aan ka midka ahaa oon u dhimanayay wax xiriir iyo contact midna laylama samayn. 1 sano iyo 9 bilood waxaan ku jiray Digfaar baan ku jiray. waxaa la ii qoray dhaqaatiirtii waxay ii qoreen waxba inta lagaagama qaban kara aad dal dibadda ah waliba dalka Turkiga bay yiraahdeen aad dhaqaatiirtii Turkiga oo Digfaar maamulkeeda gacanta ku hayay ayaa ii qoray labada kaliyood waxay yiraahdeen waa bedelaad wadnahaaguna waxay igeliyeen tuubooyin baa la igeliyay. wadnahaygu wuxuu ku shaqaynayaa tuubo iyo kaliyahayga kaadida si dhib ah iiga timaada. ilaahay baan u dacwooday daawaan iska qaadanayay. waxaan u cawday taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed oo ahaa taliyahayga ciidanka booliiska tooska ee xukumay taliye Xijaar. waxaa yiri taliye Xijaar saana ay ugu dhacday waxaan ku qaban karaa buu yiri si jasjaas wuxuu yiri waxa kuma qaban karo aniga. taliyahayga waxaa yiri gabadha xaaskayga ah ayaa kali ii bixinaysa dhaqaalahana waa igu yar yahay. waxaan ka codsanayaa warqadii cusboonaysiin oo fiisaha safaaradda Turkiga ii weydii gabadhana iigu qor ii weydii fiisaha. wuxuu yiri kuma siinaya gabadha kuma siinaya adig kaliya aan ku siin aniga kaliya maxay taraysaa. taliyuhu wuxuu yiri aniga maxaa dan ho iigu jira soo taliyahaygi maahid oo adiga mas'uulkii aniga naftayda iyo mas'uuliyaddeeda ay saarneyd soo maahid oo taliye ciidanka booliiska soo maahid. maya wuxuu i weydiistay lacag buu i weydiistay $2,000 isii buu yiri waa siinay gabadha fiisi waa u dalbahaya. aniga ma awoodi karaan annaga oo halkaas ay noo joogta taliyaha qaybta guud ee booliiska gobolka Banaadir noo soo galay annagoo murmayno noo soo galay iga bax buu yiri xafiiska. wuxuu yiri xafiiska iga bax. xafiiska waxa ay xafiiska soo xafiiskii taliska ciidanka booliiska ma adaha iska leh saan uu xafiiska soo qalabaysan baad soo gashay tali hadeerna adiga un baa lagu xilsaaro iska leh oo mas'uuliyadii ku shaqeynay. laakiin xafiiskan xafiis uu ka dhaxeeyo ummadda Soomaaliyeed oo qofka dhiban dhibkiisa lagu xalliyo way